diyaarad uu nooceedu yahay Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Lion Air ayaa waxa ay ku dhacday wadanka Indonesia. diyaaradda ayaa waxaa saarnaa tiraba 188 qof. waxa ayna dhacday wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada caasimadda u ah dalkaasi Indonesia ee Jakarta. duulimaadkan oo uu nambarkiisu ahaa JT610 ayaa waxa uu ku sii jeeday Banki Galbinang oo ah magaalada ugu weyn jasiiradda lagu magacaabo Banki Belitung. xiriirkii ay diyaaraddaasi la sameynaysay dhulka ayaa lumay wax yar kadib markii ay kacdayba. wax yar kadibna badda ayaa laga helay mana cadda in dadku ay wada badbaadeen. diyaaraddan ayuu nooceedu ahaa Boeing 737 Max 8 wayna cusbayd. diyaaradda ayaa waxa ay badda hoos ugu dhacday 30 ilaa 40 mitir sida uu wakaaladda wararka ee AFP uu sheegay Yusuf Latifo oo ah afayeenka hay'adda gurmadka. waxa uuna intaasi ku daray inay weli baadi goobayaan burburka diyaaradda. sidoo kale afayeenka laanta ka hortagga masiibooyinka waddanka Indonesia ninka lagu magacaabo Suntobo Purwo Nugroho ayaa sheegay in hadhaaga diyaaradda iyo alaabadii rakaabka laga helay xeebaha waddankaasi Indonesia. Saeed Ahmed Temreise wararka telefishanka caalamiga ah Star.